casharkeena hore waxaan ku eegnay basic media queries iyo sida loo isticmaalo meta tagska. casharkeena wuxuu part 2 yahay casharkeena hore. waxaanu sameynay inaynu breakpoint sameyno markuu shaashadu 268 gaadho kabacdina markay 400 ama 500 gaadho ayaanu halka geey. halkan waxaa kaloo kusoo dari kartaa aan min width. halkan waxaa dhihi kartaa in between labada max width iyo min width dhexdooda haddii uu ka shaashadaasi marayso waxaa siin kartaa rule gooniya. marka waxaan sameynaa hadda waxaan target gareynaa waxaan la dhaho width iyo max oo ah articledeeni. okay, waxaan sameynaynaa marka ugu horeysa intana comment ka dhigaynaa. waxaan u baahanahay tabletska u ogaan kana cabiradooda. haddii right click siino oo aan ku dhufano calaamadda yar ee halkan u jeedaa responsive markaa ku dhufatid Galaxy S5 oo kale cabirkiisu waa 360 width. iPad ko kale waa tablet waa 768, iPad Pro waa 1024 iPhone X. tabletku inta badan waa iPad iska soo waxaan leenahay 768 width markuu gaaro ayaan rabnaa in wax ku sameyno device-keena. halkan waxaan imaanaynaa intaan iska tirtirnaa background-ka. waxaan leenahay halkan hadduu gaaro 700 max width 768 uu ka yaraado class-keena loo oran jiray width hakati iyo class-keena loo oran jiray max. hadana halkaas oo kale kana hore waxay ahaayeen mid walba 50% uu ahaa. waxaan leenahay waxa ka dhigtaa ballaca waxa ka dhigtaa 25%. aan tijaabina hadaba halkan aynu joognaa waynu yaraynay intii hore caadi u ahaa. markaynu 100% aynu gaarno 768 oo jida 4 bayna ku wada muuqanayaan sababtoo mid walba wuxuu ka dhigay 25%. hadda inta ka yareyn kartaa dhigi kartaa 20% ay dhigi kartaa. 4 markuu ku muuqanayaan. okay, bal haddaynu ka sii yarayno oo gaarno 480 oo ah mobileskii Samsung Galaxy iyo maxaan sameynaa intaynu comment-ka ka qaadanaynaa aynu hore u soo qoranay. waxaan leenahay 480 pixel hadda gaadhid oo ah mobilada iPhone iyo Samsung Galaxy iyo intaynu soo qaadanaynaa. waxaan leenahay iyagana waxa ka dhigtaa width-ka marka 100% mid walba ka dhig 100% marka ka dhigtid. sidoo kale waxa ku jira float-ka waxaan leenahay oo none waayahay. haddii waxaan sameyn karnaa daadin baynu sameyn karnaa. waxaan daadin si fiican ugu muuqataa 20 pixel. okay, kana waxaan leenahay 20 pixel. okay, aan tijaabina hadaba shaashadeena saas ay noo tahay markaan yarayno aynu soo gaarno 760 wuxuu sameynayaa uu kala jabinayaa 4 ayuu kala jabinayaa. haddana si wadnana device-ka iPhone-iskana saasoo shaashadeena kala leeyahay. page-kana waa responsive. waxaan ku garanaa right click marsinana inspect element ayaan leenahay. waxaan ku dhufanaa calaamadda yar icon-ka yar ku qoranta responsive-ka. waxaan leenahay waxaad ku eegtaa S5. yes, sidan oo kale ugu soo baxay S5-ka not bad. waxaan leenahay Pixel 2 sidan oo kale ugu soo baxaya. okay, iPhone sidan oo kale ugu soo baxaya. iPhone X shaashadeena sidan oo kale ugu soo baxaya. marka kabacdi responsive waxaan dooran karnaa siyaabaha kala duwan ugu soo baxaya sidan. sidoo kale metadan haddaynu iyadana meesha ka saarno inta badan initial scale-kaas oo kale waa iskaga tegi kartaa. browserada qaar baa support karaya. hataa haddaynu initial scale la'aantii ku tijaabino oo page-keena refresh karayno it still work. okay, bal aynu metadan ka saarna meesha sidaan hore soo sheegnay. markaynu metadan ka saarna refresh karayno page-keeni wax responsive ma qaadanayo. marka waxa muhiim ah markaad doonaysid inaad responsive sameysid waa inaad mar walba ku dartaa meta tagskan active ka dhigtaa. si darteed page-kaaga wuxuu ku noqonayaa responsive ayuu ku noqonayaa. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. وبالله توفيق.